كلن كان وحويا كلن runtii ay haweenku gaar u leeyihiin عدة مرتقى دينا وحفلة وأقول إذن كائن كم ذو مريم مرسلي وقامين يسوبا أي عاوة قوبت عليه لكن من وحلي فرد قوبت تاي قوب هوين إذا ما يميلين ذلك عود صداي وحلي أنا أقول لا هوين كأيام حقه ذاك سوتشي لاي بل marka waxa jeclay caawa kulanka inaan wax ku darsano ilaa 7 ilaa 8 gawayo aan ugu leeyahay baa haweenka ka hadlaya kow hatta marban beesheegi maayo go'aan ku gaaray inaan gabayba tirin haddii aan tirina inay haweenku meel ka soo gaarayaan meel gabayga ka soo gaarayaan waxaan xusuustaa gabaygan inkastoo haweenka ku saabsan sirta nolosha waxaan leeyahay daalali oo aan haweenka ku saabsanayn markii aan ballan ka qaaday gabayga daalali weerar baan ku qaadaya ragga dabeedna wuxuu oranayaa haweenkuna waa dukaan deeqdaada barbayihiin shardaala cambaa jire iyagu dedan bay dhasheen ربو دعاء نسي سماء دمر نوجودين رجال دمدو نصار وحي دمية ربو هذا رحمة الدين سرت نرشة بحكي سرتا قبل أنت سبارة أول كم كنت سافرت لكن ما بحاجة كده يا سكان شبيه دور دار ربي درجة دي سيادة دي سبارة سيادة تأخذ دار ولماذا تعيش له هو دليل كذا 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 أنت دي بسمارسية نحريس تدريدي أنتم ما كذا عاوز سامي بدك هي ما يهلك لك واحد جعلها إن أنت إن يروك هون كدر صداع وكلنك ما سدي قبل هو يرى عنها إيه مريه حق السنة تبغى كويها سو كده رسنتين لكن واحد عاوق كده بتجينا مارتن أو ترجمي إلى أميجو هو يلا أنت سيل كنت نعاوة ملا وكل عدا شيء كده هاي سنة ما قلب بيد كنت هاي ما قلب بيد كنت أنا واقف كيا أنا بيد هون فلا كعشة كيا سيل كنت نيجي حبينا هذا كملها habeenada kamida adigoo jooga kulliyadii la foolay la oran jiray ee xamar u jirtay 18 kilomitir laakiin waxa suuq u ahaa magaalada Muqdisho ayaa galabtii soo dhaadhacay Muqdishoani jaadka iyo waxa loo soo dooran jiray magaalada jaad baa ka qaatay baabuurtii basaskii yaraayo kole magacaasiga la yiraahdo oo afkooyo u bixi jiray baan raacay dabeedna baabuurkii uu dhaqaaqay markuu kantaroolkii xamar حاجة ويا كذا قاقي وحنا يتضبع سفك كسوتشي لا يتضبع سفك كسوتشي ده رجع يتمارا مركان بسفك أنا فردي سفك تضبع قفت مرة فردا قفت مرة أيها فردا المية بيننا تقوى ستا المية لما كي بامك دقائق أوي وهذا أمسي واي سكستوي يا شيء مركو المية أمسي واي وقبل أرسل كل أموال مرعورة أو مردال أموال مردال أي هذا قعدت كريسو الناس كي بيسوق صارت أفكر كريسي مركز أنا وكل برا دبي روتي نيادو بيشا رك بدري فرديو إلى هوية ناس الناس كي بيسوق صارتو تتب بدون بيننا نقطة أفكار خاص كل نقطة لكن هذا هو واحد لوائل له وقبل ما كل حلمي تبدلنا waxaan sooydiyaa naaskan iyo halka naasku gabadha Soomaaliyeed ka joogo in ay adag tahay gabadh Soomaaliyeed ama qof dumar oo Soomaaliyeed in naaskeeda la arko inay adag tahay horaadkaaga laakiin waxa jirtay horaadkaaga iyo horaadka hableed wax la huurshabaha habeen laga arag haddana geela waxa loogu heesaa
horaad ka geel markuu candhada keenay uu dhalay uu dhow yahay aad baaragtay sida uu hadii ka dhigo waliyo candhada qofka sheeka jooga uu arkaa horaadada labada horaad hore ee hasha dhalaysa haweena si ay ku dhacdaba maalin maamaha kamid u baahan jaaris u heshaayay naaskooda aragto marka waxaan isweydiiyay waxaan haddaba maaha doqoniino maaha kow xishoodarrada maaha waxaa dhacay inay naaska hayso oo ilaaliso waajib ka culus baa yimi oo ah hooyanimo يعني الناس كده هيساتو waxa ka qaalib noqday oo ka cuslaaday in ilmaha yar caawo dhan ooyo oo ay waajibkii hooyanimada gudan weeyeen taada si geesinimo leh ay naas ku soo saartay afkay u gelisay oo shaqay oo dirgay taada sida uu marka lagu yaqaan markuu dirgay hooyadii wuxuu ku abaal mariyay bal iyo kaali ayuu dhamteena ka buuxiyay dadkii meesha fadhiyay especially ragii daaqadii baabuurka ayay boobeeno in cimaamada sida yiraahday iyo min daaqad madaxa ka riday iyo sida ay noqdeen laakiin anigu gabadhii baan caashaqsanahay taa waxay raacisay inay dinaceedii soo kurtay oo horta bantii saxaradii ilmaha ay ku dadkii baabuurka saara kaga dabooshay adeega daraganimada meesha ka socota tabeedna maradii dinaceed googaradeedii bay soo kurtay isagii bay ku qalajisay siday maradii u soo guraysay ay halkaa bawdada tagtay finally qofkii dumar inankiina aamusiisay bantii iyo saxaradiina asturtay subxaanaka yaa cadiim sidaan gabadhii ugu xidhnaa meeshaa ku socday oo la foolahay buu ila dhaafay baabuurkii halkii baan goorta baan xusuusto ii joogta halkii ka soo lugay horta maasadan sheekadaasi waxay igu xidhay sheeko aniga iyo hooyaday iyo ugu yaraan 20 sanadood ka hor habeenada ka mid ah ama maalin maalmaha ka mid ah geel baa la aruushi dabadhoon wax ina yara aniga la socda meesha loo aruuriyay way fog tahay geelkii hore dhan buu sii socday ceelkii buu yimi geeli baa aniga waxaan xilka ama kaalintooda waxay noqotay inaan geela hore is hortaago oo marba ay sii daayo maalintii oo dhan baa geeli hortaagnaa marba horba baxaysay dabadeedna goor duhura ayaa geelii ka soo carraabay ceelkii xeradii loogu talagalay buu soo galay gurigu waa ka durugsan yahay dabeedna markuu xeradii soo galay geelii waa la maalay degdeg markiiba waa la maalay si dadku waa daalan yahay raggii geela waraabinayay dabeedna geelii baa la maalay dabeedna waa la gataati dhac goor dambe ayay kaadii qabatay mara waxaan maleeyay shinjir baan ahaa shinjirka waqtigaasi nin mudakara oo haddii ay ka dhigo maaragtay raganimo leh ayuu noloshii anigu soo gaaray dabeedna kaadii qabatay waan toosay oo waxaan soo kaaday waxaan arkay hal oo dijeexday oo qaarkeedii hore dibadda jiro qaarkeed dhabana weli xerada gudaheeda ku jiro meeshu waxa la yashil caska oo ku hoday u dhowdahayo وحلوت اللباح وح أفتك شو كبح يا اللباح عديسة رتيلا كده قبعتي ودياب العيلة هالشيء بس أقول واحد حتى هالشيء ما كيستاهل سوء عدي لا حلا قادرين حتى مستود ما كان توجسات هذا هل بعد عضينا وحلا وجود والله بقولات يو حد بوش اللي سكع سوء عدي إيه يربى حلي مساحة ده هلك يجوك كاجي يا سكسي سهل قال هلك بكوّد بحي كان يبين نقطة هلك بكوّد بحي قرد با رجي نكمل كاري قبطيو dabeedna uu tooso xeradii ba waxa fadhida hal magaceeda leeyahay qaabil oo geela xerada ku jira in badan oo kamid ah dhashay oo biyihii ay soo cabtay ruqaa nooca ruqada la yiraahdo ee aroortii marka geelu dareeriga la kiciyo waxa halag yalla fuu ba ka haray hasha soo biyo la kici weeyday ayaa xeradii geeli kaga tagay ninkii toosay xaq weeyay bis qaabil ba xeradii fadhiyo ka kacay waqtiga dadku meel ay u baxsadaan iyo qurbe iyo London iyo Nairobi iyo Djibouti meelna ma jirin waxay nolol xidhan oo aad ku khasban tahay inaad nolosha gudaheeda wax ka noqotid haddii kale meel u baxsataa ma jirto tabanani waqtiga geeli si xerada ka waayay maama ma lahayn rag buuro ka kaco meeshii baa lagu ilaaway rag uu yaa
قرية حرمت دبعة أنا كاري قبعة ميسي سبحانك يا عظيم حردي بوالك يا قابل يا أفر دبيني جو ميلا الله ميلا قلنا غاقا ما شفت دار سيادة قرية قبو كيلا يقول كذا ولا كذا فوقي شريو وحلو رجريان هواك يا رجع هذا الكود يعني اسمع هذا كيف كيسة كيسانية كقول جوا دركسية ورحلنا حنقبل رحلة اللي راح يقعد لأن أرداقي ونكسراي قبله سنين يدور كيدور ما ذاك كوبنا يعني ضحك علي إنك سوشنجيرة هاي فكرة بكاهست اللي بحب وايو مجتمع للنوري هاي ويقانين والله يسهرا ويتقالمان ولا يقناس اللي بحب قبل كيس والله هيا marka inta qori aan marka ilaaha ka haya waxa weeye inuu dadka ku diro urta inta kuma soo raacay urta mar hadii aad adigu xagga dabeelka haduu xagga aad xagga dabeelka ka xigto qurbu kugu imanaya inta kugu iman maayo marka waxa caawa haduu yimaadana tay qaabil baa kugu helaho duurkayga ardayga iska dhex galay anigu ardaygay oo qaabil la iska raabsanayso ayaa halka raata sanqar ka maqlay markuu boodayo libaaxu wuxuu la mid yahay go inta sidaa u qabtay aluka ku sii daayay waxa lagu yeesay in isbirina ku jiraan oo sanqar yaro khafiif ah ayaa raata ka maqlay dayaxu waa 15 ama waa 14 sidaas loo gaabisay aku dhisi dayaxu markay dayaxatay baanku aad iyo aad buu cad yahay saas waa isaga soo talaabsaday hashiiba halka qabtay halka gorjilada halka uu jirkeena ugu jilicsan inaga iyo xooluhu oo gorjilada ayuu soo dhuftay hilib doomi maayo cariga ugaar baa ka buuxday laakiin meeshu waa oomane biyuu doonaya hashiiba gorjilada soo dhufto biyihii baa soo boorayo jilbuhu dhigay biyihii buu cabbay cabbaar buu dul fadhiistay oo haddana wuu ku noqday oo markii labaad uu ku noqday rakaatay ayuu biyihii iska dul fadhiistay cabbaar markuu fadhiyay buu istaagay oo saas uu jilicsaday oo kalinkii geelu ka baxay ayuu ka baxay waxay ka bacdi ayaa mid kale kalinkii geelu ka baxay ka soo galay oo dardartii qaba kiina biyihii buu waxay doonay waa kiina biyihii buu dul fadhiistay markii cabbaar joogay buu isna isrogayo waxay markuu xagga u jeestay cidiisii ayuu ku dhuftay marka uu ku dhooyay waxa loo saaray calooshiisa ku jirta marka uu hadiray ka dhigo maartay cidaas ku ciyo tabaadna uu baxayo waqti ka bacdi ayaa arkays muuq kale oo soo socdo saddexaad muuqu bahalo ma eka waxa si jirtay nolosha miyiga bahal la yiraahdo madax kuti waxa la yiri waa dadka way hadashaayo sida dadka labada abin ku socotaayo habeenkii intay duleedka timaado oo magacyada dhageysato yay saqda dhexe caruurta yaryar ama hebelo ama heblaayo tiraahdayo markuu hey yiraahdo ay tiraahdo hoo misigtano markuu yiraahdo iidi ay dhufsataa markaasaan illa libaaxii waxa kaga baxsanaysa qaabile hadaba madax ku tasoo socota waa madax kuti taa laga baxsan kari maayo markaasaan horta nafka qusay wuxuu soo socdaba kadinkii markuu soo gaaray gatay inuu qof yahay laakiin cabsidii yahay sida waxay beeninaysaa wuxuu inuu qof yahay ilaa qofkii soo socday ardaagii buu soo taagay xagara qofkii eegay xagaru eegay labadii dhinacba markuu iga waayay qofkuba waa hooyaday ayaa waxa hadal ka soo baxay markay labada dhinac eegtay iga weyday alla hoogi sheekadaasi igu xidhay gabadha ina geersatay baska fuusharay tabadna maasada hooyay la'aanta habeenkii baa tiriyay midhaha Soomaaliga waa kaga dhageysantihiin bal Martin baa Ingiriis ku sheego tabadna mid anuba hooyadaaya ayaa raacay tabadna قد كان كبحيا ذيك يا مريم السهرة